ka oran doonaa taraawiixda waa cibaadada ramadaanta la gudanayo markaa dadka qaarkood baa laga yaabaa inay qalad ka fahmaan sidaa daraaddeed qofku cibaadada uu gudanayo cilmigeeda inuu fahmaa waa muhiim tobaneeyo qodob ayaynu wax ka sheegi insha allahu qodobka u horeeya waxa weeye xukmu haadihi alcibaada cibaadadan xukumkeeda ma faral baa mise waa sunne waa laga yaabaa dadka qaarkood inay faral u haystaan laakiin cibaadada taraawiixda salaada la yidhaahdaa waa sunne sunne macnihiisu waxa weeye qofkii la yimaado ajri badan buu helayaa faralkana way u kabaysaa qofkii ka tagana loo cadaabi maayo haddaanu dafirsanayn qodobka labaad waxa weeye mashruuciyatu haadihi alcibaada cibaadadan iyadaa goortii la jideeye u horreysay culimadu waxay leeyihin waxaa daliilu ah in masjidkana lagu tukan karo jamacna lagu tukan karo rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisa saxiix ee bukhaari iyo muslim ku sugan min xadiidi caaisha waxay leedahay nebigu habeen buu ku tukaday masjidka almasjid annabowi fi lmadiina masaajidkiisa madiina markaasaa lagu xidhay oo dadka qaarkood baa soo helay isagoo tukanaya muu iclaaminin isagu laakiin isagoo iska tukanaya ayaa lagu xidhay habeenkii labaadna dadku aad buu u soo batay habeenkii saddexaadna way ka sii bateen dadku masuu u soo bixin nebigu oo gurigiisuu iskaga tukaday markii dambena salaaddii subax buu ka wacyigeliyo wuxuu uhi waxaan u maqnaaday waan idin arkayay ina aada u soo uruurteene in la idinku waajibiye ayaan ka baqday markaan arkay sidaa u danaynaysaan salaada ah markaa isagoo dadka u danaynaya ayuu ka maqnaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam marka halkaa waxaa laga fahmay in salaadan jamac lagu tukan karo masjidka dhexdiisa qodobka saddexaad waxa weeye salaadan cadadkeeda iyo tirada la tukanayo caaisha ayaa ka sheekaysay arrintaasoo xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukan jiray ramadaan iyo bilaha kaleba 10 ragcadood iyo midh witriga ah iyo labada ragcadood ee subaxa ka horeeya markaa 10 buu tukanayaa midhkii witriguu raacinayaa kadibna markuu waagu baryana labadii subaxa ka horeeyey ayuu tukanayaa waxaa intaasii raacsaneyd cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo wakhtigu ummadda madaxda u ahaa ee madaxweynaha muslimiinta u ahaa ayuu jamicii ururiyey si gaargaara loogu tukan jiray masaajidka nebiga dhexdiisa markaa wuu ururiyeyoo asxaabigii ubay ibnu kacbi la odhanayey ayuu yihi ubayow tuki dadka oo jamacaa ku tuki markaas jamicii ayaa lagu tukaday salaadiina wuxuu ka dhigay 20 iyo saddexdii witriga 23 marka labada dariiqo markay culimadu ka hadlayaan waxaa u soo horeeya oo ka hadlayay ragga in badan baa ka hadlay laakiin ibnu taymiya raximahullah marka arrintaa ka hadlaya waxa uu leeyahay qofku hadduu labada siyoodba ku tukado wax dhiba ma laha qofka maleeya cadadka taraawiixda aan ilaahnay cadadka salaada habeenkii la tukanayo bisha ramadaan inay tiro mucayana tahay oo aan la dhaafin karin faqad akhdaa uu gafay buu leeyahy markaa qofku cadadka waana siyaadin karaa waana nuqsaamin karaa intuu karo laba kadibna midh witriyahu lagu soo khatimo jumhuurulculamaana sidaasay u badan yihiin salaada nebigu wuxuu tukaday 11 sida caaisha ay sheegtay laakiin in laga badin karaana wax ma aha bidca bay leeyihin sida asxaabtuba ay isku waafaqeen ridwaanullaahi calayhim qodobka afraad salaada iyada macal imaam in lagu tukado oo imaamka lala tukadaa fadli bay leedahay macnaheedu waxa weeye sidaa nebigu guriga ugu tukaday guriga waad ku tukan kartaa weliba wakhtigan cabsida laga qabo ururka dadka iyo xanuunkan guriga wuu iskaga tukan karaa qofku haddii imaamka lala tukado oo wax dhibihi aanay jirinna marka iyadana fadli dheeraad uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حديث كي صحيحة ترمذي ورينا يوم شيغيا قفك الصلاة لا تكده habeenkii imaamka ee la dhamaysta wuxuu ka dhigan yahay qof habeenkii oo dhan cibaado u taagnaayo kale ayaa Ilaahay u qoraya marka fadligaas ay leedahay haduu imaamka la tukado kayfiyada salaada loo tukanaya waxa weeyaan laba waa loo tukan karaa afar lix bal ayaa loo tukan karaa oo la isu raacin karaa laakiin midka witriga ah waa inuu u dambeeyo taasi baa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam farayseenu ka arki doono qodobka lixaad waxa weeye maxaa la akhriyayaa salaadan dhexdeeda quraanka nooc gaar ah oo la akhriyo lagu eegan karaa miyuu jiraa mise tira cayiman may ka soo aroorin nabiga calayhi salaatu wasalaam tira cayiman oo rasuulku akhriyay quraanka kariimka ah sidaa daraaddeed culimadu waxa ay leeyihiin cid walba wixii u sahlanaadun bay akhriyi doonaan marka salafka qaarkood waxay ku dhamayn jireen sidaa Saa'ib ibn Yaziid asxaabiga daayirta uu tilmaamayo khatma bay sameyn jireen oo soddonkay ku dhamayn jireen rabadaanta habeenkiiba juz qoliyaha ka qaarkood 10 juz bay akhriyi jireen qaarkood habeenkii waxay akhriyi jireen macnaa saddexdii habeen mar bay ku dhamayn jireen qola iyo awoodeed jamaca had iyo jeer tukanaya inta uu karayo isla garto weey waxaan soo wanaagsanayn faas in loo tukado sida dadka qaarkood aynu aragno qul huwallaha ku tukada iyada quraanka Ilaahay badan yahay degdeg sida ay u raadinayaan qul huwallahu bay ku tukanayaan salaadiina aad baa loo eriyaa taas waxay luminaysaa macnihii salaada iyo khushuucdii qad aflaha almu'minuuna alladheena hum fi salaatihim khashi'uun Ilaahay markuu amaanaya awliyadiisa waxa uu waa dadka marka ay salaada tukanayaan khushuucsan marka khushuucdii baa lumaysa way dhacdaa dadka qaarkoodna wadamada qaarkood inay kaba sii fududeeyaan oo مثلا والشمس oo kale deentay oo ragcado lagu tukado washamsi waduhaha waa ragcad labaad wal qamari idha talaha waa ragcad saasun loo wado marka way macna beeraysa salaadii ka inta la isla garto oo si degan loo akhriyo ayaa aad u muhiim qodobka toddobaad waxa weeye witriga in loo dambaysiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi awtiruu ya ahla alqur'aan fa ina allaha witrun yuxibu lwitr dadka qur-aanka ehelka u haw ee qur-aanka lagu soo dejiyo loogu talagalay ku camal falaya ku cibaadaysanayo witriga la yimaada oo salaadiina midka u dambeeya witri ka dhiga ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra xadiidkii saxiixayn ku ah salaada habeenkii tukanaysaan mid u dambaysiiya qodobka sideedaad waxa weeye hadday dhacdaba qofkii inuu witrigii horreysiiyo doonana marka dambe salaadii inuu kordhiyo maxaa u bannaan dalqubnu caliyin xadiidkiisa saxiixi waxa uu sheegayaa laa witraani fii leyli kaas xadiidkaasaa ka jawaabay laba witri ma jiraan habeenkii mar haddaad witrigii qadintay marka labaadaad doonto laba ragcadood inaad tukato waqtigaa suxuurta witrigii baanad soo celinayn waqti mucayan miyay leedahay oo salaadan lagu joojinayo salaada habeenkii la tukanayo salaatu leylka la ilaado waxa lagu tukanayaa waxa la tukan karaa ilaa intaan waagu bariin sida uu sheegay xadiidka muslim ku sugan min xadiisi abi saciid awtiruu qabla subh subaxa ka hor awtiruu qabla an tusbixuu intaan waagu idin bariin ka hor salaada witriga tukada buu nabigu calayhi salaatu wasalaam man adraka subha walam yutir falaa witra lahu diid kale saxiixu isaguna qofka aan witrigii tukanin ilaa intii waagu dilaacay witri ma tukan karayo ka salaada waqtigeedu bacda shaay buu ka bilaabmay ilaa wuxuu soconayaa intaan waagu dilaacin aadaanka dambe aan lagu yeedhanin aan la adaamin salaada iyada qalada fahmin kuma ega kaliya salaada habeenkii taraawiix waa la yiraahdaa waxa tarwiix lagu magacaabay salafku markay afar tukadaanba way yara nasan jireen qaarkood qaarna waxay dawaafi jireen kacbada oo salaada iyo dawaafka ayay israacin jireen marka tarwiix asaas rawaxa yurawixu tarwiixan waa masdar rawaxa tarwiix waa nafisaada lagu dhaxdarayay
ragcadaha dhexdooda marka afar la tukadaba ayaa ay ugu dareen ayaa magaca loogu tilmaamay laakiin waa salaatuleyl iyo qiyaamuleyl marka kuma eega salaada habeenkii la tukada ramadaan keliya sida dadka qaarkood ay u fahmeen laakiin way soconaysaa inta uu qofka cimrigiisu jiraba waa cibaado habeenkii lagu camiro lagana faa'iidaysto aadna fadligeedu u badan yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan cabdilaahi buu la hadlayey asxaabigaa la yidhaahdo cabdilaahi ayaa uu la hadlayey ibn camr bn caas markaa waxau uhi ya cabdallah laa takun midla fulaanin kaana yaquumu bileyli uma taraka calaa macna alxadiid cabdilaahi oo hebel oo kale ha noqonin habeenkiibuu cibaadaysan jiro uu iska daayey marka aad u hadayn sidaad ramadaan u cibaadaysanayso bilaha kalena uwad oo ha joogtayn ila ilaahay la caabudaya ramadaan bilihii kalena waa la caabudaya marka cibaadadaas sidaas u soconayaa wakhtigeeduna oo ramadaan wuxuuna la doonayaa inaan u jabsanaano oo aynu cibaadadii la qabsanno oo wakhtigeennii ku buuxino laakiin wakhtiga kalena waa ku camiraynaa waa sii wadaynaa tobaneeyada nuqdadood ayaynu taraawiixda ka odhan lahayn marka qofku hadduu masjidka yimaadana waa ku tukan karaa oo duruuf ka hor joogsanaysa aanay jirin hadduu gurigiisa joogo oo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa imaam ugu noqdu tukiyana salaatuleylkii waa tukan karaa taraawiixdii oo xagga horeana waa tukan karaa intubana way iska bannaan tahay qunuudkana waa la raacinayaa madhabu waa isku khilaafsan yihiin oo qolo waxay leeyihiin qaybta dambe ramadaanta weeye qolona waxay leeyihin waa lagu wada caam yeelayaa witrigaasaa qur-aanka ayaa qunuudka lagu akhriyayaa iyadoo loo ducaynayo ehelka asxaabta iyo ummadda islaamkaba aakhiriya adduunkana wixii khayra lagu ducaysanayo wahada ma aquluhu waastaqfiru اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatu